بسم الله الرحمن الرحيم دمان مرت شرف قال كان اسكو تيميد salaadiin iyo uqaal iyo dhalinyaro iyo wax karaba waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh halka waxaan iskugu nimid in aynu nabadgelyada wadankeena oo kaga hadalno nin wal oo soo hanjabayana deeynanu nabadgelyada wadankaanu wax ka qaadi karay ilaahay iyo wax bilaadan oo wadanka wax ka qaadayana ma jiro nabadgelyaduna aad u qaalintay ummadda islaamka meel wala ay joogaanna awsoonaadaan inaan Soomaaliland aanay cidna wax ka qaadi karin ilaaha macbuudkeena samaystay baa wax ka qaadi kara siyaasad haday noqoto iyo haday noqoto madax dhaqameedna cusbiyadana waxaan u sheegayaa in ragga madax dhaqameedka ku jira iska soo saaraan oo waayo maanta kuwii wax kala saari lahayd haday iyagii walaayaan hadhow toolaya wax kala saari karaya marka xusbiyadana waxaan iyagana aan baaq u dirayaa in ay madax dhaqameedka sida uqaasha iyo salaadiinta ka dhex ololeynaya inay iska soo saaraan anaga waa nagu ceeb dalkana waa ku ceeb مسؤوليتي لسارينا توحى من وحقهم كرمتهم وما تدباتوين كان يا أبارها دعيا كوي دكو وحق بالله ويا المدح قمتكم لكن ما هي السياسة بحران أو يهلك كسوه الشباب أو يهلا وطن كوحان قسم هنا يهو على سوقاته مهمة ما حتى مهمة وحويا دنيكي ما أنت تقال ديار ما هو بل قل يعني كبلو markaas badoogaanaysa dagaalku xigay waxaan hadalka ku soo dhawaaminaya madaxweynaha dowladda madaxweynaha wadanka Soomaaliland markii hore laga dooranay imika inaynu caynaa dawayna ugu ceeb kursiga uu madaxweynuhu ku fadhiyaana dawal kursiga inagu saarnay inaynu shalayna saarno maanta aynu cayno dema fiicna waligeed baa ninka maanta madax ee dooranana ay macayna markuu xilkan ka deganayo raahno wala waa hedelo kale la helaya ayuu waxa leeyahay madaxweynaha aan baaq u dirayaa in labada gudoomiye ee labada xusbi u yeero wada hadal ugu dhameeyo arrinkooda. Assalaamu alaykum.